wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa weli wada wacyigelin ku saabsan saameynta taban ee baraha bulshadu ku yeesheen waxbarashada ardayda ayaa maanta waxay ku qabteen dugsiga sare ee Faarax Omar wareyntu halkaasi kala hadlay maamulka sare ee dugsiga Faarax Omar iyo weli mas'uuliyiin ka socota wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland iyagoo ardayda ka wacyigelin saameynta taban ee baraha bulshadu ku leeyihiin ardayda waxaanu iska furan doonaa barnaamijkeena halkan u soo istaagnay kaasoo ahaa wacyigelinta waxaanan ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka ah waxaana inoo akhriyi doonaa khadar saxardiid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما imikana waxaan u dhoobi doonaa gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada degmada oo barnaamijka isaguna intiya wixii ka dambeysay loo daadihin doona bismillaahi raxmaani raxiim maamulka macallimiinta ardayda dugsiga Faarax Omar agaasimaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo tiimkiisa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أما بعد كل إيران ما يهذلك حيثات كترتان وحن توسقوا وريتين دونا هدي لها إلهه أجاسمها وزارة التكنولوجيا ده أو إنه دادين دونا برنامج كان لحلقة الكا كسر واجس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد marka hore waxaan u maadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala inagoo caafimaad qabna nabad qabna iskugu keenay kulankeenan qiimaha badan leh ee dugsiga sare ee Faarax Omar marka labaad waxaan u maadnaqayaa maamulka macallimiinta iyo ardayda sharafta badan leh ee dugsiga sare ee Faarax Omar ee aanu saaka booqashada ugu nimid si aan ugu sameeyno wacyigelin kooban oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee baraha bulshada mar saddexaad waxaan u maadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo inagala jooga kormeere maxamuud oo ah kormeere degmada Hargeysa gudoomiye ku-xigeenkii degmada waxaan jecelahay insha Allah inaynu ujeedada aynu iskugu nimid si toos ah aynu u gudagalno intaynanu barnaamijka bilaabin oo aynanu wacyigelinta ku wareejin injineerka inoo jeedinaya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyadoo qaranka uga wakiila isgaarsiinta iyo wixii tiknoolajiya waxaynu rabnaa inaynu tiknoolajiga uga faa'iidaysano qaabka saxda ah ama bulshadeenna wax taraya qarankeenana wax taraya sidoo kale waxaa barbar socda inaynu iska ilaalino ka digtoonaano dhibaatooyinka inagaga imanaya qaybaha kala duwan ee baraha bulshada barnaamijkan saaka u soconaa waxa weeyaan sida halka boorka ka wada arkaysaan
saamaynta taban ay baraha bulshadu ku leeyihiin ardayga waxbaranaya ama kobaca aqoontiisa insha Allah barnaamijkaas aynu gudageli doonaa wasaaraduna waxay eegan u tahay wasaaradaha kala shaqaynaysa waxbarashada ugu horeyso inaynu technology-ga uga faa'iidaysano qaabka saxda maadaama aad ardaytihiin oo waxbaranaysaanna aad iska ilaalisaan khataraha ku gadaaman baraha bulshada macluumaadkaynu soo gelinayna waa laydinkala hadli doonaa ee baraha bulshada ku jira caafimaadka iyo saamaynta uu ku leeyahay baa laydinkala hadli doonaa waxbarashada ardayga aad adductionka amba adaptationka ula sameeya amba la qabatima sida uu ku noqonayana waa laydinkala hadli doonaa qodobo faa'iido idiin noqdo oo dhaxalgal idiin noqda oo aad ka duushaan baa insha Allah maanta laydiin soo jeedin doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadnaqaya waxaynu si toos ah u bilaabi doonaa barnaamijkeena waxaan ku soo dhaweyn doonaa agaasime Ibraahim oo ay injineerka inoo daadihin doono oo ah khabiir dhanka technology-ga waliba wax badan iyo macluumaad badan ka qoray baraha bulshada iyo khataraha ay ku leeyihiin ardayga iyo qofka wax baranaya injineerkeenu insha Allah ku soo dhaweynayna qalbi furan iyo qalbi wanaagsan aan ku soo wada dhaweyno sax fiican aan ku soo dhaweyno aad wanaagsan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad salaamayaa ardayda quruxda badan hortayda taagan Faarax Omar marka koowaad iyo mar labaadba waad mahadsantihiin annagoo runtii kalaasyada idinka soo saarnay idinkana soo habsaarnay aad baan idinka raaligelinaynaa waqtiga oo kooban iyo idinkoo kalaasis dib u noqonaya haddaan mawduuca toos u galo mawduuceenu waxa weeye saamaynta taban ee social media-hu inagu leeyahay dhammaanteen waynu wada garanaynaa social media qof kastoo inaga midii wuxuu isticmaalaa waqti xaadirkan social media marka aqoon aad u durugsan buu qof kastaa u leeyahay qaarkiinba imikoon idila hadlay isticmaalaya marka waxaan jeclaan lahaa in attentionka aad soo jeedisaan barnaamijkan wuxuu ku dhabisan yahay internetka maadaama oo dhammaanteen aynu isticmaalno internetku goormuu bilaabmay marka koowaad waa inaan wax iska weydiino wey project buu ku bilaabmay hay'ad scientist ah oo ARPANET la yidhaa oo Maraykanka ku taalla 1960s-kii ayuu ku bilaabmay hay'addaasi waxay doonaysay in cilmi baadhistayaasha u shaqeeya ay isku xidhmaan oo dhowr gobol kala jooga inay isku xidhmaan halkaas ayuu projectkaasi ka soo bilaabmay ilaa uu markii ugu horreysay 4 computer oo 4 gobol kala yaalla ay isku xidhmeen maantana waxaa la sheegayaa trillions of computers inay adduunyada korkeeda isku xidhan yihiin qaabkaynu u isticmaalnaa haddii dalkeennoo keliya aan tusaalo soo qaato dhammaan ama ugu badnaan dadka reer Somaliland waxay isticmaalaan social media isticmaalaan maxaynu u isticmaalnaa waxaynu u isticmaalnaa inaynu ku wada xidhiidhno waa qodob waxaynu u isticmaalnaa inaynu wax ka baranno waa mid labaad waxaynu u isticmaalnaa inaynu ku madadaalanno oo inta badan aynu madadaalo ka dhiganno waxaynu u isticmaalnaa inaynu wax isku weydaarsanno oo aynu fikradaha maskaxdeenna ku jira aynu ku soo bandhigno haddaba maadaama oo uu yahay qayb muhiim ah oo nolosheenna ku xidhan nolosheenna gaarka ah ku xidhan sidee ayuu saamayn inoogu leeyahay waxa isweydiin leh wax kasta oo aad loo isticmaalo wuxuu leeyahay saamayn togan iyo mid taban wax kasta oo aad loo isticmaalaa oo isticmaalkiisa la badiyaa wuxuu leeyahay saamayntiisuu leeyahay khatarihiisuu leeyahay marka waxaynu ku bilaabi doonnaa saamaynaha aynu maanta u joogno oo ah kuwa taban ee aynu kala kulmi karno xagga internetku waa aalad wada xidhiidheed ama social media waa aalad aynu ku wada xidhiidhno qof kastaana baahi gaara oo uu qabo si maalinla ah si saacadla ah si daqiiqadla ah
oo laga yaabo inta aanad wax kala haleelin in aad toos u furto markaad jaanis u heshaba social media adigoo sugaya wax cusub fariin cusub dhacdo cusub wax cusub adigoo raadinaya ayaad si joogto ah ugu xidhan tahay marka isticmaalka joogtada ah iyo baahida joogtada ah ee abuurantay ee kugu xidhaysa social media maxay khatar kugu leedahay qodobka koowaad waxaan soo qaadan doonaa khataraha xagga caafimaadka maadaama oo dad bilaadan aynu nahay waxa ugu qaalisan ee aynu haysanaana ay caafimaadka tahay waa muhiim inaad ogaataa khatarta caafimaad ee uu kugu leeyahay waxaan u kala qaadi doonaa laba khatarood khatarta xagga maskaxda iyo khatarta xagga jirka khataraha xagga maskaxda isticmaalka faraha badan leh ee internetka cilmi baarayaashu waxay sheegeen inuu abuuro warwar joogto ah depression xagga maskaxda ah oo keenayo maadaama oo waqti badan aad dul fadhido maskaxdaaduna ay hal meel eegayso meesha aad eegaysaana ay kugu soo celinayso lights fara badan maybe habeenkii xilli dambe inay warwar xagga maskaxda ah kugu abuurayso qoorta oo kale inay aad ku xanuunto oo pain maadaama dhaqdhaqaaq sameynay attention-kaaguna uu yahay mid dhinac kaliya u jeeda inaad ay kugu abuuri karto in ay qoorta ku xanuunto maadaama qoortana ay maraan nervous inay indhuhu aad ku xanuunaan in aad dareento waxa la yidhaahdo inaad isweyday tusaale qofku haddii uu addiction la sameeyo oo uu aad iyo aad ugu xidhmo social media wuxuu dareemaa hadduu in yar ka maqnaado social mediaha in aanu qof jira ahayn oo iswaayey self absorption oo ku dhacay oo aanu qofkii meeshaba joogin had iyo jeer qofku wuxuu dareemayaa warwar ah waxba maad soo dhigin barihii bulshada gooraha wax faa'iido la maad keenin attention maad samayn sidaa daraaddeed qofkaasi warwar joogto ah buu dareemaya inuu had iyo jeer raadiyo hal tusaale oo nooloo dhammaantooda garanaysaan inuu soo dhigo sawir qurux badan inaad maanta oo dhan ka fikirto inaad sawir soo dhigto oo ay waqti kugu qaadato sawirkaas nooc u ekaanayo dadku saamaynta ay ku samaynayso reactioniska ka soo noqonaya waxyaabahaasoo dhan warwar bay kugu abuurayso waxaa laga yaabaa waqti fara badan oo aad meel kala gelin lahayd inaad ku bixiso hal sawir oo aad naftaada ka qaado oo social mediaha cajabiya kaas haddii uu kuu hirgalo beritoole waxaad ka fikiraysaa mid labaad oo aad haddana isla waqtigii waqti ka badan ku bixiso oo aad yacni taas waxay keenaysaa warwar joogto ah sawirkan miyaa la jeclaan doonaa miyaa la nici doonaa adiga muxuu kugu samaynayaa marka taas waxa weeye waa xaalad nafsiyana weeye xaaladda nafsiyanka ah runtii haddii aad qabatinto way adkaanaysaa inaad kaa joogto ilaa aad iska yarayso iska xakamayso social media caqabadaha kale ee uu leeyahay waxa ka mid ah waxa la yidhaha kelinimo inaad mar walba jeclaato inaad kelidaa joogto loneliness aad dareento oo aad jeclaato inaad mobilkaaga aan ku fororto waqti badan ku qaadato adigoo ama wax daawanaya ama adigoo wax soo dhigaya ama adigoo qof la jaad garaynaya loneliness-ka faraha badan leeyahay nafta uma fiicna warwar fara badan buu kugu abuurayaa khatar caafimaad buu kugu abuurayaa waxaa laga yaabaa maadaama kelidaa joogto maanta dhan saacado badan inaad ku fikirto inaad naftaada wax yeelayso oo aad naftaada dib ugu soo noqoto maadaama oo social media uu kaa soo kaxeeyey dadkii uu kaa soo kaxeeyey ehelkii uu kaa soo kaxeeyey asxaabtii oo dhan uu kaa soo kaxeeyey taasi waxay kugu abuuraysaa kelinimadaasi in mar qaarkood fikrado aad u xun oo naftaada wax yeelaya oo isdil hadday noqoto kuwa dhaawaca naftaada ugu geysanayso intaba ay kugu abuurto waxaa kale oo naftaada calaamadaha inaad ogaato haddii aad doonayso inaad addiction inaad ogaato waxaan miyaad la qabatintay mise lamaad qabatin
waa calaamado ayaad u baahanta haddaad dareento in social media ku jiidanayo oo uu kaa kaxaynayo asxaabtaadii uu kaa kaxaynayo waxbarashadii uu kaa kaxaynayo caafimaadkaagii uu kaa kaxaynayo ehelkaagii waxaad u baahan tahay inaad dib isku qiimayso waxaad u baahan tahay naftaada inaad dib ugu noqoto oo aad weydiiso intee in leeg buu saamayn kugu yeesho waxaa celcelis ahaan qofka la sheegaa qofka caadiga ah normal qofka caadiga inuu maalintii 3 ilaa 5 saacadood isticmaalo maalintii 5 saacadood oo aad keliya fadhido oo maskaxdaadu meel keliya ku jirto waxaad qiyaastaa bal caafimaad darrada ay kugu keenayso 5 saacadood wixii aad qabsan lahayd oo ay kaa kaxaynayso runtii khataraha caafimaad ee uu social media inagu haya aad bay u farabaday aan u soo noqdo qodobka aynu joogno oo ah khataraha xagga waxbarashada maadaama oo aynu ardaynahay qodobka koowaad ee uu lumiyaa waxa weeye waxa loo yaqaano self concentration dhammaantiin imika way idinka muuqataa qodobkaas oo waxay caddaynaysaa 100% inaydan concentration lahayn in badan oo idinka midii mobil bay isticmaalaysaa in badan oo idinka midii way sheekaysanaysaa qodobkaas waxaa sabab ah social media sababtaa concentration ma jiro qofka bini'aadanka ah marka wakhtigiisa qaaliga ah loo soo huro waxa ugu weyn ee uu bixiyaa waxa weeye inuu soo jeesto inuu waxaan sugo waxbarashada imika aad dhiganayso macallin baa ka hor taagan adigaa iska yimid gurigaagii wakhti baad soo hurtay buug baad soo qaadatay mustaqbal dheer baa ka sugaya laakiin macallinkii oo ka hor taagan haddana haddii aad concentration samayn weydo oo aad focuska saari weydo waxa qofkan kuu sheegayo macallinku waxa uu kuu sheegayo maadada uu kaala hadlayo that means waxa kaa lumay qodob aasaasi ah oo noloshaada ah waa inaad dib isugu noqoto oo aad isweydiiso maxaa keenay in ay naftaadu ku xasili weydo waxa lagu sheegayo macallinkan ka hor taagan wakhtigan kaa baxaya waa lack of concentration concentrationka hadduu kaa lumo maadada wakhtiga wax kasta oo ka midii noloshaada maxay wuu ku dhaafaya khataraha kale uu leeyahay waxa weeye ee xagga waxbarashada uu ku leeyahay in naftaada aad maali weydo maalidda waad garanaysaa naftaadu waxay leedahay maskax waxay u baahan tahay istiicaab inaad samayso waxaan lagu sheegayo ma yahay wax saxa sideed u baari kartaa laakiin haddii hawl yar lagu diraba naftaadii waxay u cararaysaa xagga social media waxaa laga yaabaa assignment macallinku kuu diro exercise inuu kuu diro inuu hawl yaroo kale kuu diro markiiba waxaad u cararaysaa xagga maxay googleka waxaad baadhaysaa wixii uu kuu diray waxaad doonaysaa inaad wakhtiba ku lumin waxa oo aanay maskaxdaadu ka shaqayn keliya aad samayso maxay copy and paste waa shaqada ugu fiican soo waa maxay copy and paste waa shaqada ugu quruxda badan la imkaan qabanno wey yaa ii sheegaya oo idinla jooga oo aan isticmaalin kelmadda copy and paste imise idinka mid ah oo habla ama inama leh ayaa marka shaqo loo diro ama assignment loo diro aan simply copy and paste ma jiraa are you sure 100% okay thanks aad u mahadsantahay nuxurku waxa weeye maskaxda inaad isticmaasho yes wax baadh yes wax akhri internetka akhri laakiin waxaa loo baahan yahay inaad maxay aad maskaxdaada isticmaasho inaad maskaxdaada isticmaasho maskaxdaada aad tuujiso ayaa aad loogu baahan yahay waxa kale oo waxbarashada uu khatar ku leeyahay xaqiiqatan wakhtigaaga waa waste of time 100% haddii aanad wax faa'iido leh ka qabanayn social media haddii aad maanta oo dhan isticmaalayso Facebook haddii aad maanta oo dhan isticmaalayso YouTube haddii aad maanta oo dhan isticmaalayso Snapchat haddii aad isticmaalayso aaladda imika cusub waa looda garaysa ma tagu cusub imika isticmaalaa maxay TikTok wakhtigaaga ayaa waxa aad ku luminaysaa maxay 100% si aad TikTok video duubi lahayd soo wakhtigii aad waxbarashada gelin lahayd ee aad wax akhri lahayd ee aad exercise-kaaga ka shaqayn lahayd waxaad ku bixisay maxay TikTok haddii aan adu wax boos garaynayn haddii aan adu video dhigayn waxaad daawanaysaa maxay videoyo kale videoyadaas maxay kugu samaynayaan saamayn bay kugu leeyihiin waxaad maanta oo dhan scroll up
kor unbaad u wadaan waa waxaan dhammaanayn waa endless way waa waqtiga uu kaa qaadaya waxbarashadii waxaa laga yaabaa inaad form 4 u fadhido waxaa laga yaabaa half GC inaad fadhido waxaa laga yaabaa inaad maxay aad ka shaqaynayso final examki laakiin social media baa ku jiitay wuxuu ku riixay xagga iyo maxay aaladihan aan isticmaalayn Facebook oo ah ka ugu badan ee la isticmaalo qof kasta wuxuu isku dayaa inuu video daawado inuu sawir soo dhigo inuu like-tiisa eego inuu comment-ka ka jawaabo why waxay la sameeyeen maxay addiction may la sameeyeen maadaama addiction-ka inta la ugu dhacay waxaad u baahan tahay re-evaluation inaad dib isu qiimaysato baanta ardayga waxa tahay mustaqbalkii bari baad ka dalkani wax ka sugayaad laakiin adiga waxaad ku mashquulshay maxay waxaad ku mashquulshay TikTok Facebook YouTube Snapchat Instagram iyo halkaa ka wad qof fikir sameeyey ayaynu inagu maanta oo dhan waqtigeena ku luminaynaa waxbarashadaadii uu kaa qaatay waxyaabaha kale uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu kuu samaynayaa virtual friends wax loo yaqaan saaxiib aan jirin ma leedahay saaxiib aan jirin how many of you imisaa haysta saaxiib aan jirin dhammaanteen saaxiib aan jirin ma wada haysanaa saaxiib aanad arki karin maybe aanad taaban karin aan kuu dhoweyn oo laga yaabo inaad iminku internetka ku barato awal waxay ahaan jirtay in la isku yimaado saaxiibadu isku yimaadaan dumarku isku yimaadaan la isku soo boholiyo laakiin iminka afartii miiska wada fadhiday ee shaaha wada cabaysay ayaa maxay nin walba mobile isticmaalaya marka dhammaanteen waxay ku xidhannahay maxay saaxiibo kale saaxiibkaaga real friend kan maaha kula fadhiya waa maxay waa ka aad ka la chat garaynayso waa ka kala weey marka virtual friends ayuu ku abuurayaa runtii dhinac kasta oo aad ka eegto waqti badan buu kaa cunay indhahaaga waxaa la sheegaa nafs issue inay u baahan tahay 20 daqiiqaba inay ilbiriqsi samayso laakiin qofku inuu markuu xoogaa focus 20 daqiiqo meel ya saaro inuu u baahan yahay at least inuu maxay meelo kale u yar jeesto indhaha si issue ay dheecaamadii iyo wixii u soo dayso waxaa laga yaabaa habeenkii adigoo ka dhuumanaya waalidka inaad qolka madowaysato bustaha hoosta ka sii gasho lan indhahaagana aad maxay ku isticmaasho maxay light-kaas indhuhu dilaya indhaha ayuu inaga laynayaan waa wixii ugu qaalisanaa ilaahayna siiyey oo ah nuurka runtii wax badan oo faa'iido uu leeyahay laakiin nuxurkeennu maanta waxa weeye sidee baynu uga hortegi karnaa naftaada qof walba dib imika u qiimee halkeed ku suganta xaalad nooceed ku suganta ma waxaa tahay qofka waqtigiisa ugu badan ku bixiya social media ma waxaa tahay qofka yacni iska controla awooddaa ma leedahay aad isku controli karayso maasha allah xagga dumarka haa badan baa ka maqlay laakiin diraasadda waxay sheegaysaa isticmaalka ugu badan ee social mediahu waa dumar weeye useriska ugu badan ee Facebook isticmaala ama TikTok isticmaala waa ladies way more than 65% ayaa waxay isticmaalaan maxay social media ragga waxa ka badsada maxay xagga dumarka sidaa daraadeed waxaynu u baahannahay inaan dib isku qiimayno waxaynu u baahannahay waqtigan iminkaad haysataan waqtigii saxda ahaa wey ee aad wax ku baran lahayd ee aad changes ku samayn lahayd laakiin runtii way adag tahay inaynu isbeddelkaa samayno ilaa iyo aynu yeelanno self determination oo ah go'aan qaadasho adag inaad go'aan saxa qaadato oo aad dib isku qiimayso oo aad waxbarashadaada dib ugu noqoto oo aad social mediaha iska xanifto social media faa'iidooyin badan buu leeyahay waxbaad ka baran kartaa wax badan baad ka baran kartaa waxaa jira macallimiin fara badan oo bilaasha oo waqti kaaga baahnayn oo aad ka qaadan karto waxaad ku wadaagi kartaan fikradihiina waxaad ku wadaagi kartaan macluumaadkiina wax badan baad laakiin waa goorma waa marka aad side-ka fiican ka istaagto waa markaad maxay dhinaca fiican ka istaagto waa markaad isweydiiso ma tahay are you on the right path dhinacii saxda ahayd ma joogtaa oo ah caafimaadkaaga ma ka fikiraysaa waqtigaaga ma ka fikiraysaa waxbarashadaada ma ka fikiraysaa intaa haddaad isweydiiso waad saxsanta laakiin haddii aanad isweydiin oo aad mobilka xitaa inta aad saacadda ku jirto ay darku kaaga badbaadaysa inta la tukanayo hadday darka kaaga badbaadaysa oo dadka qaar ay adag tahay inuu aad iyo aad uga fogaado
shayga ugu horeeya markaan indhaha kala qaadno waa moobilka weyn runtii waa moobilka weyn qof kasta wuxuu eegaya yaa ku soo garaacay yaa fariin kuu soo diray yaa maxay yaa video kuu soo diray maxaa what is the hot news on the maxay social maxaa kulul ee ku jira maxay social media marka waxaynu u baahannahay xaqiiqatan dhalinyar baa tihiin inaad caafimaadkiina dib u eegtaan inaad waxbarashadiina dib u eegtaan inaad waqtigiina dib u eegtaan oo aad ku dadaasho inaad real friends samaysato instead of maxay virtual friends inaad concentration la timaado instead of maxay lack of concentration inaad runtii focuska ku samayso waxbarashadaada ka faa'iidaysato waqtigaaga macallinkaaga ka faa'iidaysato iskuulkaaga uga faa'iidayso mustaqbalkana adigu ku sugaya hadhow tolo maxaad ku jawaabi social media ayaa mashquuliyada odhan doonta maxaad odhan doontaa facebooka waqtiga ka qaaday baa odhan doonta soo ma tiktok baan duubay baa odhan doonta ya waxaa loo baahan yahay inaad dib iskugu noqoto oo aad dib u eegto naftaada qof walba gooni u noqo adigu qiimayn gaara isku samee maadaama oo waxaan adiga khusayso mustaqbalkaaga gacantaada ku jiro oo aan cid kale aanay kula qaadanayn canaanta waqtigaa kaa lumayna aanay cid kale aanad u eersanayn waqtiga oo kooban dartii wax badan baynu sodhan lahayn runtii wax badan tusaalayaal noon ka sheekaysan lahayn iskuul kalaasyadu ka soo dareerina darteed wuxuun baan idinkaga tegayaa inaad dib ugu noqotaan inaad naftiina dib u qiimaysaan inaad isweydiisaan su'aalahii aan imanka isweydiinay caafimaadkaagu halkee buu ka taagan yahay waxbarashadaadu xaggee bay ka taagan tahay waqtigaagu halkee buu ka taagan yahay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas waxaan kusoo gabagabinay barnaamijkeenii gaarka ee wasaaradda isgaadhsiinta tiknoolajiyadda somalilan ugu talagashay saamaynta taban ay ku yeesheen waxbarashada ardayga baraha bulshada isticmaalkoogu inta barnaamijka xiga ku kulmi doono dhammaantiin waxaan ugu dhaafana saasyo nabadgelyo